رسول الله مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود قدوميها قولها الشعب قدومي كحجينك أقل كسرة وزارة كحجينك قولها حكومة iyo baarlamaanka iyo mas'uuliyiinta ganacsatada inala jooga iyo culimada diinka iyo civil society-ka dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib war badan ma jiro waxaan dhihi lahaa kolley dan qarad dhihi lahayd way soo qortay way duubtay isagoo hadal ah way sawirtay wayna idin sheegtay marka waxaan filayaa inaan wax badan oo sii sheega jirin waxaan u rabaa inaan wax yar saxo halkan ku qornaa oo ah in dakhligu gudaha uu kor u kacay 25 boqolkiiba ma aha 56 ayuu kor u kacay boqolkiiba marka intaas waa sixid waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo madaxweyne annaga haddii nala magacaabay oo xil nala saaray ammaanadii naloo dhiibay oo ahayd shaqadan ha la qabto muddadii 2 sano ahayd waxaan isleeyahay intii karaanka iyaga ahayd waan qaban waxaan caawa hortaada yaallaa wixii la qabtay oo maqal iyo muuqaalba ah waxaa markhaati madoona in maalintii golaha shacabku uu ansixiyey xukuumadda iyo maanta in dalkeenu gaadhay guulo waaweyn oo ah kuwii hadda la sheegay kulligan aan wada maqlaynay horeyna aan u wada ogeyn waxaan rabaa guulahaas la gaadhay ee amni ee dhaqaale ee bulsho ee siyaasadeed ee kulligood la wada xusay ma aanaan gaadhneen haddii aan madaxweynuhu nagu hagayn nagu hawadinayn saboor iyo taageero iyo talo iyo tusaale uusan nala garab taagnayn ma aanaan gaadhneen xukuumaddu ma gaadhin marka waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo runtii iska lahaa hindisaha vishinka la fulinayo iyo aragtida la fulinayo ee laga soo minguuriyey ama laga soo dheegtay tiirarka hadda la sheegay ee 6 ahaa waxaan hubaa sidoo kale in aan taayir noo rogmeyn oo aanaan hadday tahay dayn cafintii iyo haddii ay tahay hubka qaadistii ama cunaqabatayntii hubkee la qaaday iyo haddii ay tahay security councilka oo aan ku biirnay si aan rasmi dabcan aan daa'im ahayn iyo haddii aynu east african community aadnay iyo haddii aan dhaqaalaheena kor u qaadnay iyo haddii aan qaraxyadii magaaladan iyo dalkan ka dhici jiray 70% hoos u dhignay iyo haddii aan falalkii al-shabaab ay geysan jireen ee kale ee dil lahaa ee weerar lahaa aan 39% hoos u dhignay haddii aan intaasoo dhan ku guulaysanay kuma aanaan guulaysan lahayn haddii aan nalala shaqaynaynin oo aysan noo dhaga fududayn oo aysan nala dareemayn mas-uuliyaddaas golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliyeed marka waxaan halkan runtii uga mahad celinayaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiyaha aqalka sare oo runtii iyaga iyo labada gole ee ay baarlamaanka ay madaxda ka yihiinba si hagar la'aana noogala shaqeeyey hawshaas aad iyo aad baan iyagana ugu mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed
oo haddii aysan mas-uuliyadda aysan nala dareemayn oo aynan nagala shaqaynayn oo aysan noo dhagaluglayn ay adkaan lahayd in daynta la cafiyo iyo in dakhliga kor loo qaado iyo in aynu gaadhno isku filaansho bilow inoo ah oo hadda ku eg inaynu mushaharaadkeena iska bixinno kharashaadka xukuumaddana iska bixinno. waxaan u mahad celinayaa gabdhaha iyo wiilasha mise odayaashaan dhahaa ee halkan fadhiya ee golaha wasiirada oo runtii ayaguna dadaal xoog leh ku bixiyey sidii arrintaas looga mira dhalin lahaa. iyagana waan u mahad celinayaa. caawana kulligiin idin soo wada sharxay oo madaxda qaranka waxqabadkoodii u taagnaa aad baan ugu mahad celinayaa. si xoog leh waxaan ugu mahad celinayaa geesiyaasha qalabka sida ciidamada qalabka sida oo suurto geliyey runtii in maanta lagu naaloodo amniga laga sheekeeyey oo har iyo habeen u taagan inay dalka ka xoreeyaan khawaarijta sheegay. waxaan filayaa xuseen iimaan haddaan idhaahdo xuseen iimaan wuu mahadsan yahay. in fara badan waxaa madaxweynuhu uu ugu baaqay oo aan xukuumaddu ay ugu baaqday oo madaxda qaranku ugu baaqday oo shacabka soomaaliyeed ugu baaqeen oo culimada soomaaliyeed ugu baaqeen anigoo culimada aad ugu mahad celinaya in ay wiilasha soomaaliyeed sheegtay dhibaatada ku ah dalkan iyo ummaddan dowladnimada iyo nolosha ummadda ee hal maalin dadka ku dhow 500 600 dilay dadkan ka laayay ee weli dhibkii wada. waxaa in badan loogu baaqay inay iskaga yimaadaan oo ay dadkooda iyo dalkooda iyo ahalkooda ku soo laabtaan iyagoo nabada oo la soo dhaweey. haddana waxaan u malaynayaa isma bedelintaasi waxaana daliilku u ah intii timid ee iskaga timid oo dhani qarankooda ay qayb ka yihiin waana joogaan ayagoo sharaf leh mas-uuliina dalkooda jooga karaamaysan cid maxaan ku dhahaa faquuqaysa aysan jirin ayay dalkooda iyo dadkooda ayay joogaan oy difaacayaan weliba oo ay si sharaf leh u joogaan. laakiin midka la kari waayo ee khawaarijnimada ay culammadeennu sheegtay isagoo ku sifaysan weli halkaa la taagan bambooyinkii iyo gaalaysiintii iyo layntii iyo qaraxii kaas naxariis ma leh walaa ta'khudkum ya wuxuu ilahay yidhi subxaana watacaala bihima ra'fatun fi diin illah. looma naxariisanayo haddii mar ay bahashu soo gaarto in midida loo qaato qofkuna joog laga waayo wacdi laga waayo walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fi diin illah. marka dambe xuseen iimaan waxaan u malayn qur-aankana waa isku ficnaayane laakiin sidaas waaye looma naxariisanayo haddii intaa lagu kari waayo waa la iska celinayaa waa la gubayaa waana la naaraya. marka waxaan mar kale ku celinayno inay soo waantoomaan. madaxweynena waa joogaa isagaa iskale khudbadda anugu oo marti inoo caawa. mudane madaxweyne waxaan mar labaad kaaga mahad celinayaa inaad caawa adiga iyo madaxda kaleba nagala soo qayb gasheen. waxaa naga go-an haddii ilaahay yidhaahdo inaan horay usii soconno. hiigsiga yagu waa dheer yahay hayaanka yaguna ma dhowaa. waxaana rajaynayaa inay noo muuqdaan ay noo muuqato soomaali cagaaran oo qurux badan oo barwaaqaysan oo nabada. way noo muuqataa waa aragnaa waa u jeednaa. malkooyin yaryar iyo waxoogaa yaryar oo karkashina ka sokeeya intaasna waxaan rabnaa inagoo iswadanna ood adigu baabuurka hogaaminayso inaan ilaahay idankiis ka wada gudbayno dadkeennuna baabuurka si fiican u qabsadaan. aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo guddoomiyaha golaha shacabka